booliiskii markay yimaadeen gabadhii waxaa loola cararay cisbitaal in yar kadibna gabadhii waa ay geeriyootay intaas kadib booliisku waxay u diiwaangeliyeen keiskani keis shil ah inay gabadhii ku dhimatay biyo ayda ay ku dhacday keiskiina sidaasi ayaa lagu xiray maalmo kadib wiilkii yara ee AJ ayaa dad qaraabada ah ugu sheekeeyay in gabadha yar ay hooyadiisa dishay yacni gabadha aysan shil ah ku dhimanin laakiin hooyadiisa ay dishay intaasi kadib arinka waxaa la wadaagay booliiska waxa ay soo xireen Armando Lewis maalmo kadibna waxaa la soo taagay maxkamadda markii maxkamadda la soo taagay waxaa ku marqaati furay wiilkeedii yara ee 6 sano jiray wiilkan yar ee AJ xaalad adag ayuu taagnaa xilligaasi qofka uu ku marqaati furay waa hooyadiisa qofka uu marqaati kacayo oo la dilayna waa walaashiisa runtii waa arin aad u adag wiilkana waa wiil jira kaliya 6 sano intaas ayaan jecelaystay inaan la wadaago haddii aad muuqaalka kan sheey fadlan noo like garay sidoo kale noo share garay si asxaab badan u gaaro haddii aad jeceshahay inaad daawatid muuqaaladan oo kale oo dhaadheer waxaad ka heli kartaa barteeda YouTube-ka linkiga wuxuu u saaran yahay profile-kiga